وابين برعابيل بيلا وابين waxa uu ahaa habeen ka duwan habeenada kale habeen uu sagootinayay faqaarayaasha laga bartay ordayahankii caanka ahaa ee markii dambana noqday tababaraha sida weyn dunida looga yaqaano jaamac maxamuud aadan jaamac karaaciin munaasabad xalay ka dhacday magaalada Hargeysa ayuu ku shaaciyay inuu guud ahaanba ka fadhiistay ciyaaraha Olombikada oo muddo ku soo dhex jiray munaasabadan waxa ka soo qayb galay madaxda u horeeyay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland xubno wasiir ah xisbiyada mucaaridka ah iyo waliba boqolaal ka mid ah haldoorka Somaliland ugu horreyn waxa munaasabada ka hadlay jaamac maxamuud aadan waxana uu ka sheekiyay halgankii dheeraa ee uu soo maray iyo waliba caqabadkii iyo fursadihii uu helay intii uu ku jiray waxay ugu farxad badnayd habeenka aan 3 world record saacad gudaheed kooxda 3 world record iyo saacad gudaheed kooxdeedii jabisay habeenkaasay ay aad iyo aad qiimo gooniyo leedahay ma naseexan igu naxdi badnayd habeenka aan watay laba ciyaartooy anagoo Berlin joogna World Championship-kii laba ciyaartooy oo ugu fiican dunida aan watay within 3 daqiiqad gudahood ayuu midna ku fay midna ka baxay garoonkii baa laga tagay markaa waa la soo helay habeenkii markii la waayay oo meesha baan ka kici kari waayay anigoo diyaarad la socdo business class fadhiya nin cadaan ah ay soo galo kursigii buu markaa ay weydiiyay yiri maxaa ku kalifay maxaa madaala kursiga masaan ku dhahaa kursiga fadhiya waxbaad ka qabtaa oo dibadna waxaan arkay ninku inuu cunsur yahay oo aan ogolayn ninka madow ee halkan fadhiya dibadna waan kursigii baan suxulkan ku yara ciriiriyo waxaan silay ninka waa kuma ogolaa adnaha ogolaanin dibadna kursigii buu ka kacay xaggaas uu wareegay meel kale uu fadhiistay halkaasaan ku yareen mid isu geeyay abwaan meeyay markaa heestu ma badna abwaan meeyo dilab saalaxi baa joogay riga weena ku jiray iyo markaa anigu ma sheegan karo abwaan taagaasi eray muhiimadu waxay haydun cidun baad xilka doontaba ku hay magaca doontaba lahow cidun baad dulsaar ku tahay cidun baad dulsaar ku tahay dhankooda waxa iyaguna munaasabada ka hadlay shakhsiyaad ay si dhow isu yaqaaniin jaamac karaaciin waxayna ka sheekeeyeen shakhsiyadiisa iyo halgankiisa ciyaaraha jaamac muddo yar oo 2 sanadood ah ayuu ku noqday star ciyaaraha fudud oo uu ka bilaabay burco goboladii oo uu ku gaadhay in uu noqdo universal athletic star musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Ciro siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi iyo marti sharaf kale ayaa iyaguna munaasabada ka hadlay jaamac waa qof markuu adduunka joogana Soomaaliland sharaf u soo jeeda markuu Soomaaliland gudaheeda joogana wax badan qabta oo qof koobsaday maamuuska ugu sareeya jaamac wuxuu mudan yahay in bilada qaranka la siiyo munaasabad qiimo badan weeye farxad bayno tahay inaynu jaamac caawa sagootino oo maamuusno inta ay in ka badan baynu gu leeyahay jaamac waa haliyay qarankeena wuxuu soo hooyay magac iyo maamuus weyn iyo dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla jaamac wuxuu ku guuleystay nolosha guulo waaweyn buu gaaray waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa jaamac iyo marwadiisa Sucaad inantan aftiga wahay labadaba waxaan u hanaynayaa aadna ugu bogaadinayaa guusha uu soo hooyay jaamac Sucaadna ay ku garab gashay aad iyo aad baan ugu hambaliyaynayaa waa shay runtii aad u qiimo badan caawa in halkan loogu xafladeeyo oo lagu soo dhaweeyo marka aad iyo aad baynu u soo dhaweynaynaa u bogaadinaynaa waxaana jaamac calaamadu yahay qof guuleystay jaamac saa la sheegay isagoo yar buu bilaabay ciyaartooy wuxuu noqday ciyaartooy guuleystay wuxuu noqday ciyaartooy caalami ah dabeedna wuxuu noqday tababare caalami ah sida anigu u fahmay caawa jaamac wuxuu ka nastay tababaranimadii caalamiga ahayd ama coachkii caalamiga ahaa waxaanu fursad u helay ama Soomaaliland fursad u heshay inay ka faa'iideysato waayo aragnimada jaamac markaa waxaan leeyahay ciyaartii kama bixin maanta wuxuu fursad u helay inuu Soomaaliland ku nagaado Soomaaliland ka faa'iideysato waayo aragnimadiisa
ugu dambeynna waxaa soo gunaanaday madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici. waxaan leeyahay walaalkeen jaamac waa shakhsi runtii ku dayasho mudan sharaf badan iyo magac badan ummadda reer Somaliland soo hooyay gaar ahaan magaca Soomaaliyeed oo dhanba sharaf soo hooyay dadkana wuxuu dheeraaday in wixii ka soo hooyay ama ku xoogsaday mihnadiisii iyo shaqadii tababarnimo inuu weliba ku maalgeliyo waddankiisii taasaynu ugu mahadnaqaynaa dhammaanteen baan ugu hambalyaynaa runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan leenahay jaamac jazaaka allah khayr baan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro. gabagabadii munaasabadda waxaa shahaadooyin sharaf la guddoonsiiyey shakhsiyaadkii lagu maamusay inay qayb lixaad leh ka ahaayeen qabanqaabada munaasabadan iyo sidoo kale dad iyagu wanaag la jeclaa orodyahankii caanka ahaa iyo weliba tababare Jaamac Karaaciin oo munaasabadan xalay lahaa. Axmed Shimaali, Home Cable TV, Hargeysa.